meeshii ugu xumayd bay maraysaa iyadoo dagaalo joogto ah ay ku hayaan nabadiidka Soomaaliyeed oo la baxay al-shabaab daacish iyo kuwa kale oo huwan magacyo kale waxaana lagu ugaarsanayaa shacabkeena magaalooyinka noogu waaweyn ay ka mid yihiin Boosaaso iyo Gaalkacyo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo tacsiirtii ka dhacday maanta Gaalkacyo Allah u naxariisto dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay waa wad maqashana u maleynaa qofkii maqalna in loo duceeyaan jeclahay inaan hadda u duceeyno aan u tacsiyeyno dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto jannadii ha ka waraabiyo intii ku dhaawactana Ilaahay ha caafiyo haddeerna waxaad aragtaan in gobolka deriskeena ah ee waqooyi ay ku soo duuleen dhulkeennii ayna haystaan qaarkiis muddo ka badan 10 sano maantana ay u jiraan caasimadeennii Garowe wax ka yar 50 kilomitir waxa magac xumo noogu filan hadaaqa ka soo yeeraya maamulka Hargeysa waa hubaal in dad danaystayaal ah ay dabada ay horinayaan ayna dabada ka riixayaan qolaada sokeeye anoo og labada shacab inay yihiin walaalo ayna kala maarmin waxaan uga digayaa maamulka waqooyi galbeed inaysan xoog ku muquunin karin shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka mid ah asaasiyaashii Puntland ayna tahay in shacabka goboladaas lagu tixgeliyo inay iyaga ka timaado ay ka tashigooda walaalahooda reer Puntlandna mar walba ay ula taagnaadaan xuquuqda dhulkooda inay iyagu yeeshaan shacabka Puntland waa shacab nabadeed oo daris fiican laakiin marna aan yeeli doonin in dhulkooda la qaybiyo jawaabta nabadgelyo xumada ma ahan ciidan xumo Puntland waxay leedahay ciidanka maanta ugu fiican Soomaaliya ay ku dheehan tahay geesinimo wadaninimo daacadnimo iyo dulqaad iyagoo dhulkooda u taagan xilli kasta iyo xaalad kasta iyagoo aan haysanin daryeel ku filan iyaga iyo xaasaskooda sida mushahar joogto ah caafimaad waxbarashada ubadkooda iyo wixii la mid ah marka su'aashu waxay tahay maxaa halkaa ina gaarsiiyey ciidanka Puntland waxa dayacay waa dawladooda dawlad xumada ka jirta Puntland ayaa keentay in awood u weydo joogtaynta mushaharka ciidanka iyo daryeelka qoysaskooda waxaan nasiib ku yeelanay in shacabkeenu ay mar walba u taagan yihiin daryeelka ciidamada mar kasta oo xaaladii la soo daristo haddaba walaalayaal waa inaan sida ugu dhaqsaha badan u bedelnaa jidka qalloocan ee Puntland hayso si aan khataro badan oo nagu soo wajahan uga badbaadno shacabka gobolka Sool Sanaag iyo Cayn waa shacabka dhistay guntigana u ahaa asaaskii dawladda Puntland maantana ay mugdi ku jirto kalsoonidii ay ku qabeen maamulkoodii Puntland waan ogahay in badan oo idin ka mid ah inay rumaysan yihiin in himilooyinkii loo yaqaanay Puntland la soo nooleyn karo waxaan ogahay in dad badan oo aaminsan yihiin inta faraaruqa iyo wadajir la'aanta dawladda iyo shacabka loo aanaynayo ku tumasho xuquuqda shakhsiga ama bulsho oo lagu tuntay ama laga garaabin
taasuna ay dhalisay kala qaybsanaan iyo habacsanaan ku timaada haykalkii dowladnimo. waxaa qof walba ogsoon yahay inaan Puntland weligeed cadow qabsan, guushana mar walba ay ku imaan jirtay midnimada shacabka. waxaan aaminsanahay in wadajirkeenna iyo isku tashigeenna aan kaga guulaysan karno caqabad walba oo ina soo wajahda. qodobka saddexaad aan caawa halkan kaga hadlayo waa cadaaladda iyo saraynta sharciga. sharciga oo si cadaalad ku dhisan loo fuliyo, loona siman yahay, cid ka saraysana ay jirin, ha ahaado madaxweyne, isin ama shakhsi, waa waxa ummadaha hormare halkan ay ku gaareen. markhaati baa idinkoo dhan ka tihiin waddankan aynu hadda joogno iyo kuwa la midka ah, waxa kala hagaya waa sharci ku salaysan dastuurkooda iyo cadaalad. waxaan in muddo sheeko wadaag la ahaa bulshadeena Puntland ku nool ay ka mid yihiin indheergarad, cuqaal, culumo, ganacsato, macallimiin, shaqaale dowladeed, hooyooyin iyo arday, waxayna kulli isku waafaqsan yihiin inay jirto cadaalad darro. Puntland hadda qaangaar way dhaaftay oo waa 20 jirsatay. marka walaalayaal, waa wax innaga oo dhan inoo yaal inaan hurdada ka kacno oo gacmaha isqabsanno sidii aan ku keeni lahayn dowlad wanaagsan oo abuurta garsoor cadaalad ku dhisan, oo yeesha maxkamadihii dastuuriga ahaay oo dhan, xeer ilaalintii, qareennimo madax bannaan, booliis tababaran oo tayo leh, iyo xabsiyo daryeel maxaabiisaad leh. walaalayaal, saraynta sharcigu waxay ku imaan kartaa markaan fahamno xuquuqda muwaadinnimo, kulana xisaabtanno madaxdeenna. cidda ina hakratay ma ahan qofka kursiga ku fadhiya, ma ahan mas-uuliyadda dowladda. cidda ina hakratay waa innaga, annagoo dhan waay, oo mar walba dooranno hoggaan khaldan oo aan ka soo bixin mas-uuliyaddii loo igmaday. iyo golo shacab aan ku imaan rabitaanka bulshada ee ku soo baxay wax isdabamarin, aana lahayn aqoontii xildhibaan looga baahnaa. waxa waajib inagu ah annagoo dhan inaan dalkeenna iyo dadkeenna ka xurayno danaystayaasha, laaluushqaatayaasha iyo kuwa u shaqo taga oo aan dadka iyo dalka u shaqaynin. aan abuurno daljaceyl iyo waddaniyad, taas aynu ugu abuuri karnaa dadkeenna shaqo, kuna dhisi karnaa kaabayaasheenna dhaqaalaha. waxaynu u baahannahay inaynu gallo safar dheer. waa in safarkaasu noqdaa mid qorshaysan, mid aan ku beddelayno qaabka fadhiidka ah oo aan hadda haba yaraatee waxba ka beddelin 20kii sano oo la soo dhaafay. warsoo ma awoodno. qodobka afraad waa dhaqaalaha. ilaahay wuxuu nagu manaystay dhul baaxad leh oo barwaaqo ah, bad iyo biriba, ayna sii dheer tahay macdanta hoostiisa taal oo aan weli la taaban, haddana dadkiisii ay sabool ka yihiin. waxa caloolxumo weyn inagu ah dhammaanteen in dhallinteennii wax baratay oo jaamacadaha ka soo baxay ay rajo la'aan darteed ku dhammaanayaan badda, laguna jirdilaayo Liibya iyo Yaman iyo meelo kale, iyaga oo nolol doon ah. waxa ayaan darro weyn ah
in abaaraha soo noqnoqonaya waxba laga qaban. waxaynu ka mid nahay wadamada ay saameysay isbeddelka cimilada ee adduunka oo dhan ka jira. waana wax waajib ku ah in dowladdu ka yeelato qorshe cad sida qabashada biyo-xireennada, xirmaynta dooxooyinka, dhiraynta deegaanka iyo dhowridda duurjoogga. waxaa masiibo qarameed ah in badi dhallinyaradeenni ay shaqo la'yihiin, waxqabad qorshaysanna uusan muuqan. tan kale oo ka sii daran waa maskax guurka dhulkeenna haysata, aqoon-yahanadii oo dibadda ka aaday, hadda halkaa wada fadhinaa u malaynaa. iyo badaheennii oo la xulufaysanayo innagoo aan wax dhaqaale ah aysan ina ka soo gelin